arrintan al-Israa wal-Mi'raaj xilligii ay dhacday dad markaas ku cusbaa diinta oo markaas islaamka soo galay yaa tashwiish badan oo lagu furay daraadii ayaa dib uga laabtay oo dacaayad waxa laga dhigay in la yiraahdo say ku dhici kartaa qof maka jooga oo xalay maka seexday inuu tago baytul maqdis ama masjidul aqsa haddana samaawaadka looga sii qaado haddana isla habeenkii gurigiis uu ku soo laabto subaxdii markuu waaga bariyayna arrintaas inay xalay dhacday inuu ka sheekeeyo kuwa waxay ku cabireen aqligooda yani sida uu u sheegayo oo keli ah oo ayna ku darin awoodda ilaahay iyo wixii ay yaqaaneen wax ka baxsan ilaahay inuu samayn karo kuwa marka arrintu waxay u qaateen arrin la iska sheeganayo oo iska ciyaar ah markaas ay diintan waa iska ciyaar waan iskaga baxaynaa kuwa ka baxeen dad kale markii loo sheego way ka istaagayeen bal aan hubsano ayay dhahayeen ilaa Abu Bakr Siddiq oo intii loola tagay waxa lagu yiri ma maqashay saaxiibka waxa uu sheegayo muxuu sheegayaa xalay in la dheelmiyay meelo badan la soo marsiiyay haddana uu inala joogo ayuu sheegayaa hal kalimo buu Abu Bakr Siddiq aw qaalaha arintaas ma yiri markaas ay dhaheen haa wuu yiri waa runtiis saasa waxa loogu bixiyay Abu Bakr Siddiq wuu u rumeeyay nabiga arintaas ayada ah marka hadda aynu joogno xilligan koo waxa jira diinta islaamka iyo mabaadi'deeda social mediahan wax walba ku jira dad muslima iyo kuwa aan muslim ahayn kuwa diinta ka shakiyay kuwa ka baxay intaas waxaan ka shakeyna waa Soomaalida oo af Soomaaliga wax ku qorqora waxyaabaha ay ka murmaan oo ay diideen waxa kamid ah arintan oo kale oo ay leeyihiin yani aqligay ka soo horjeedaa marka aqligaaga adiga yaa ku yiri diinta iyo aqliga markii la isgarab dhigo yani waqti inaga diinta inoo muhiimsan oo tii Sayyidina Ali dhihi jiray hadii ra'yi maxay kula tahay diintu ay ahaan lahayd kabaha lagu socdo ee la yiraahdo مثلا al-khuffayn wa taqaanana مثلا fiqhi ku yaalo oo leeyahay baabu al-masx ala al-khuffayn khuffaynku waa iskaasaha oo kale dhulka lagu istaaga lagu socdaa markii oo la weysiisanayo oo qofka uu khuffaynkaas uu gashto waxa dhacaysa meesha laga masaxo waa intee meeshii dhulka la saarayay lagama tirtiraayo meeshii dhulka la saarayay sida iska ahaanay meesha laga masaxaayo waa meesha kore ee dhulka aan la saaraynin markaas wuxuu diintu hadii ay ra'yi ahaan lahayd oo maxay kula tahay aqligaagu muxuu ku sheegayaa haday arintu ku socon lahayd aqligu wuxuu keeni lahaa meesha mudan in la masaxo in wax laga tirtiraa ay tahay meeshii dhulka taabanaysay ee bus iyo wax lagu istaagay iyo taas ahayd inta wax loo qaato in la masaxo la tirtiro oo meesha hoosa laga masaxi lahaa oo waxa labadan waxa mudan hadii la fiiriyo kor in laga masaxo in hoos laga masaxo waxa u dhow wasakh iyo wax ku dhaga meesha dhulka taabanaysay dhulka la dhigay lama dhihina waxa laga masaxo korka laga masaxo korkaas laga masaxay meesha dhulka taabanaysayna sideeda dhulka u taabanaysayo sidii ayaa weysida qofka haduu korka masaxo khufaynkii qofka oo muqiimka ahna yawmun wal layla yani habeen iyo maalin ayuuna iska siibaynin oo korka uu ka masaxaya haduu musaafir yahayna 3 maalmood iyo habeenadoodii la jiraan ayaa la masaxay waxaan ka wadaa yani diinteena islaamku aqliga way ixtiraamtaa oo dadka ay la hadasho waa dadka aqliga leh inna fi dhalika laayatin liqawmin ya'qiluun li ulil albab dadka aqliga oo saaxiibka haduu qofku majnuun noqdo aqliga laga qaado salaadna lagama rabo soonna lagama rabo marka diintu ayaa asalka ah aqliguna yani wixii yani markii loo sheego wixii lagu garan lahaa ayuu asaga u yahay laakiin asagu intii banaanka la soo dhigay yiraahdo diintaan ku fiirinaynaa oo asaga uu noqdo miisaanki oo la yiraahdo aqliga hadaan ta wax u fiirino oo aqligi uu diido
diintii aan diidaynaa asaas ma yaa horeeya way macna kala hormarsiinta labadu waa muhiim waa loo baahan yahay laakiin say u kala horeeyaan waxa horeysa diinta horeysa haday yani diinta iyo aqli iska hor imaadaan yani inta badan iskama hor imaanayaan maxay yeelay isku meel ay u socdaan laakiin hadii mesela la yiraahdo aqligaas la soo hormarsiinaya waa mid keentay professor jaamacad oo inta shahaado la qaato inta ugu badan asoo haysta yaa wuxuu inkirayaa ilaahay inuu jiro oo wuxuu iska noqonayaa mulxid ilaahay inuu jiro yaa sheegi kara miyaan aragnay markaas macalinkaas noocaas oo kale waxa soo muxaadaro jeedinaya yaa wuxuu rabaa inuu yiraahdo waxa jira waxa lagu gartaa waa waxa in la arka ay tahay itusoo itaabsi hadii wixii la arki waayo macnaheedu wax jira ma ah markaas wuxuu leeyahay ilaahay miyaad aragtaan hadda inuu jiro maxaad ku cadaynaysaan halkaas uu la aaday markaas maadaama aan la arkin ilaahayna looguma talagelin adduunkan in lagu arko maxay yeelay awoodda bin aadamka indhihiisu inta ay leeyihiin awoodda baawarka indhuhu way xadidan tahay xoog lama siinin indhuhu ay ilaahay ku arki karaan la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar ilaahay indhuhu ma qabtaan lama arki karo ilaahay asagu se ilaahay wuu arkaa dadka laakiin aakhir markii la tago dadka ahlu jannada ay galaan wafdi ayay u noqonayaan ilaahay yawma nahshuru al-muttaqiina ila ar-rahmani wafdan wa nasuuqu al-mujrimiina ila jahannama wirda marka muttaqiintaas markii ilaahay wafdi ay u noqdaan waxyaabaha ay ugu jecel yihiin waxa kamida ilaahay inay arkaan oo hada lagu duceysto allahumma arzuqna an-nadra ila wajhika al-karim ilaahay dadka wajigaaga arki doono oo jannada galay ilaahu nagu dar ayaa ilaahay la weydiistaa markaas awood waxa la isa siinayaa mu'miniintu ay ilaahay ku arki karaan laakiin adduunka inta la joogo indhuhu awoodda ay leeyihiin ma gaarsiisno nabi muusa ilaahay la hadlay wa kallama allah muusa takliiman wuu maqlay marka ilaahay baa yani awood u siiyay inuu dhageysto ilaahay baa la hadlay wuxuu ku yiri inni ana rabbuka fakhla'na alayka innaka bilwadi almuqaddas duwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri yani wa khitab ilaahay Allah allah markii nabi muusa ilaahay Allah hadlay su'aasha la weydiiyo asoo jecel inuu warku u sii socdo wuu dheerayna wuu faahfaahina waxa la weydiiyay wama tilka biyamiinaka ya muusa gacantaada maxaa ku jira markaas wuxuu yiri hiya asaaya atawakkau alayha wa ahushu biha ala ghanami wali fiha ma'arib ukhra yani hada lama weydiinin maxaa gacanta kuugu jira maxaad se ku qabataa hawlaha ay ku qabato si faahfaahsan u sharax lama dheen waxa la gacanta maxaa kuugu jira jawaabtu maxay tahay waxa igu jira u shaydi wama tilka biyamiinaka ya muusa qala hiya asaaya بس جوابت انت اسوي وما تلك بيمين يا موسى هي عصايا لكن محو كسي دري وشن maxaad ku qabataa هي عصايا اتوكل عليها وان كتير صدا وان عسكدا واهش بها على غنمي ارينا waxaan ugu daadsada caleenta iyo abqada wali fiha maarib ukhra ujeedooyin kalena waan kale bal intuu isdaba dhigay fiir mar waxa la yiri intuu kaligi imaaday oo qoomkiisa ka soo tagay wama ajalaka an qawmika ya muusa dadkii maxaad uga soo tagtay qala هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى حقيقي جوغان لما دين موقت محاد غصو تكتري وما عجلك عن قومك يا موسى مركز سحور هم أولئك وكواس على أثري راكي كسو تاغيين وعجلت إليك جوابت واتمرك وعجلت إليك ربي لترضى إن أترهالي نقط أيان إلهي عن أسو الدقدقي يعني مركز هذا الكاس إلهي والله الله markii dambe wuxuu ilaahayow inaan ku arkaan rabaa arini anzur ilayka arini itus anzur ilayka an kufiriya qala lan tarani ilaahay wuxuu ku ima arki kartid waxa yeelay indhahaagu awood ay igu arkaan hada mobilada aan wadanay sababta batarigooda iyo memorygooda iyo inta ay qaadayaan mid walba meel uu ku ogyahay jira in uu qaadi kara jirto oo saacada yani uu qaadi karo intaas 4GB 86 in uu qadarin ayaa jira indhaheena marka inta ay qaadi karaan ay arki karaan waa in loogu talagalay inaga inaan isku aragno koonkaan inaan ku fiirino laakiin ilaahay inaan ku aragno mimrigeenu ma qaadayo waxa lagu yiri lan tarani ima arki kartid
laakiin si aad baratig waxa lagu siinayaa inaad in arki karina dadka iyo buurta yaa adag waxa adag buurta dhagaxa adag adiga dhagax hadii mid dhagax aad teestays buura dad madaxa ku dhufato madaxaaga ma jabaay mise dhagaxa jabaay madaxaaga la jabaay waxa adag marka dhagaxa adag waxa lagu tusaa baratig si aad u baratigarayso buurtan agtaada ah yaa nuurka ilaahay iftiinka ilaahay in yar oo kamid ah yaa lagu soo aadinaya markii lagu soo aadiyo buurtu haday u adkaysato iftiinkaas oo ku dhacay inay sii joogto markaas waa lagu tusaa adigana waad arki kartaa marka lan tarani walakin undur ila aljabal fa in istaqarna makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqan falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin waxyaab la tusay buurti agtiisa dhagax ahayd ya falamma tajalla rabbuhu liljabal buurti wax yar ayuu ilaahay u soo muuqday iftiina la tusiyay buurti way dhalaashay ja'alahu dakkan buurti way baabaaday uu burburi ilaahay buurti weyneed markay sheelantay ay baabaaday oo bacaad ay noqotay nabi Muuse oo meesha taagnaa jugti meesha ka dhacday qarax weyn haduu dhaco qof ag taagan inuu suuxa dhici karto markuu buurti ay burburtay wa kharra Muuse sa'iqan uu suuxay huwa dhacay caadi wax ma kala ogab muddo markuu meesha jiifay al soo kiciyay falamma afaaqa markuu soo miirsaday qala subhanak ilaahi wa nazhanta in lagu arko oo adduunyo lagu arko wax la gali kara ma tubtu ilayka su'aashi aan ku weydiiyay waan kaaga toobad keenay waana awwalul mu'minin marka yani waxaan ka wadaa yani wax kasta yani hadda dadka dhahay mesela maadaama wixii aan la arkaynin wax jira ma ah halkaas aan meeshan u socday tahay macalinka hadda sheegayna wuxuu marka waa mulxid moogta ilaahay ma rumayso wuxuu ku yiri jiritaanka ilaahay uu inkiray oo daliil uga dhigaayo lama arkaayo arday faahima la ardayda moogta waa fahmo badan yihiin ardaydii wuxuu ku yiri arday dhageysta macalinkeena aqligiisa ma u jeedaan intee aqligiisu leeyahay ma aragtaan markaas ay dhahneen ma aragna aqligiisa wixii aan la arkaynin ma jiro soonamuna dhihin aqligiisa marka ma jiro hadduu qof aqligiisu una jirin maxay noqonaa majnuun warkiisa ma la qaadan ma lama qaadanayo marka diidmada ilaahay uu diidayo waa wax kama jiraan saa ula socdo waana saaso koonkan aynu ku noolnahay wax iska sameeyay ma jiro manasadan yarta hada midalan waa la sameeyay alwaaxidan waa la isku dhadhajiyay farsamo yaqaan intuu imaado isku dhadhajiyay ayadu inta iska sameysantay meeshan iska manay soo istaagin waa la sameeyay saas ilaahay wuxuu leeyahay am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun marka waxaan jeedaa arinta al-israa wal mi'raajka haday dadka qaal leeyeen say ku dhici kartaa hal habeen intaas oo masaafo in la soo maro warqti aad ka sii jirtay ma adiga waa mucjizo ilaahay nabiga uu siiyay mucjizooyinka rasuusha ilaahay uu siiyana wixii dadku ay ka saayeen waxaan ahayn waay hadda mesela dhaqaatiirta waxay yaqaanaan qof xanuunsan daawo in loo qoro hadduu ilaahay caafimaad u qorayna uu ku fiicnaado hadduu ilaahay caafimaad u qorin uusan fiicnaanaynin laakiin ma dhici kartaa dhakhtar hadda jooga ruux mesela isbitaalka intii la keenay daawo kasta loo qoray la kari waayay dhintay isbitaalada waa lagu dhintaa dhakhtarkii markuu arkay qofkii xanuunsanaa uu fiiriyay qalaf qofkii nafta ka baxday awoodii dhakhtarka intay ku egtahay marka wali ma aragteen isbitaal intii qof la geeyo qofku uu dhintay dhakhtarkii loogu soo wacay oo doctor uu kaalay ninkii uu dhintay hal sharoobo oo ku noolaado u qor ama hal cirbad oo ku soo istaago ama ku soo fadhiisto kaale ku dur wali ma maqashan ma awoodda dhakhtarku waxay ku egtahay inta uu nool yahay wax u qorqoro laakiin markuu dhinto gacantu ka taagayaa wuxuu u qorayaa warqad la yiraahdo shahaadatul wafaa warqadii dhimashada yani certificate inuu dhintay intuu ka taabana si aan qofkii oo nool aan loo duugin dhakhtarka wuxuu xaqiijinayaa qofkan markuu taabto xubniis meeshu ka dhaqdhaqaaqay oo arka inayna shaqaynaynin wuxuu leeyahay qofkan wuu dhintay dadkiisu ha baxsadeen oo ha duugteen mucjizo ilaahay waxay keentay xilli waxa jiray dadku ay caafimaadka aad u yaqaaneen mucjizooyinka rasuusha loo soo dhiibana dadka markaa jooga wax ay yaqaanaan oo ay khatarta ku yihiin wax ka daran aan mucjizo laga dhigaa tusaalaan xilligii nabi Muuse waxa badnaa sixirka aad u yaqaaneen
oo ay meel ka gaareen waxyaabo la yaab la sixir mawtu waa indha saraxaad qofku waxaan jirin ayaa yukhayalu ilayhi min sihrihim anna tas'a yani waxyaabo indha saraxaad la sameynaya khatar ay ku aayeen nabi Muuse la keenay ushiisi ayaa dhulka loo dhigay marka usha dhulka loo dhigay wixii ay sameeyeen oo ulaha kala aha ay socday talqaf way baliqliqaysay way dhamaysay dadkii sixirka yaqaanay ee fircoon uu keensaday markay arkaan sixirkoodii sida loo galay waxay ogaadeen waxaan inuu sixir ka weyn yahay oo san sixir ahayn markaas ay rumeeyeen waxay aamanna bi rabbil aalamiin rabbi Muusa wa Haaruun xilligii nabi Ciise dadku waxay yaqaaneen caafimaadka dhaqaatiirta badnayd dhaqaatiirtu markay intay yaqaanaan inta qofku nool yahay markuu qofku dhinto dhakhtarku waxa kamuuna qaban karin nabi Ciise waxa muujin looga dhigay ruux dhintay oo dadku isku waafaqeen u jeeyo inuu dhintay yaa intuu imaado ayaa wuxuu leeyahay qum bi idnillaah ilaahay idankiisa ku soo istaag hadduu uu dhintay qofku soo istaagaya dadka qaar waxa laga inay dhahan qof dhintay ma hadda ka hor la soo istaajiyay oo ay diidaan waa la soo istaajiyay maxay la Allah markii hore abuuray yaa nabiga mucjizo uga dhigay si ay dadku u rumeeyaan inuu ahaa yuhyi al-mauta bi idnillaah ilaahay idankiisa ayuu ku soo nooleyn jiray ilaahay idankiisa waxa uu ku dhacaane qum bi idnillaah intuu soo fariisan jiray halka maxaa ku haray caafimaadkii aad taqaaneen wax ka sareeya ayaa la keenay nabigeena sallallahu alayhi wasallam dadku markaa joogay oo la joogay waxay aad u yaqaaneen luqada carabiga ay fasiix ku ahaayeen markaas waxay leeyeen shucaro ama dad khudbada akhriya oo qabaa'il inta isu imaadaan maka markii la isu imaado sanadkii mar waxa la jiri jiray suuq leeyahay suuq cukaad oo yaani abyaada lagu tiriyo shicirka qabiil walba xor soo kaxaysanaysa qof ayaga ka dhashay oo gabayga yaqaan ama khudbada yaqaan oo fasiix ah markaas wuxuu ka sheekeynayaa dhaqamada ay qabiilkaas ay leeyihiin markii taa laga tirtiray quraanka uu soo degay xajka markii la imaado waxa lagu yiri ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا سيدي عاد أبيالكين شيء جرتين وكان شيء ما كحيل هاين أو ياشوا ذيك الشيء كان فصيح هذا يكون جرتو أي شيء جريم وحيكون فانا مركا إنه فصيحيين أو اللقاء العربي عد كجوه رئيس أي سنجريم قرآن بوحلوسه دجي بلسان عربي مبين لقد العربية القرآن لقصه دجي مركز وحلو يري فأتوا بسورة من مثله هل سورة أسوأ القرآن كوكلا كان مرة فأتوا بعشر سور مثله طبعا سورة كان مركز الذي يقول إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله على أن يأتوا مثل لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني هذا يسوق كاشتان حتى مكيني كران معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي فصيحة هي عربية وهكذا زي كسعود معجزة مركز السيد النبي وحكم لها الإسراء والمعراج وهذا نصعنا مناسبة هذا وحي هاي النبي صلى الله عليه وسلم سألك سنتين مركو جوجي مكة وإسلامك وبلوغا هذا الله نبي دتك مسلمين تعي مركز جوجي دتك آد الله نبي وحكم لها خباب بن الأرض عمار بن ياسر بلال الحبشي يعني دتك سلاس أهوال دقحانا كرك لقى ساري جري وسيد هذا أي سمايان هندية يشينو هندية ما يدم كواركن قف مسلم أنتي قبطان أو أفرت الدين أي كقبطان لغها يجمعه هو بوليس إيه يا قفك أو يسأو هايان أي بكورة أولو وين أي كتو مايان قفك مسلم كا وحنصوح السنة مركب بلال الله دقحانا كرك لقى ساري أصلا وحولاه أحد تي نفتر كذا صون نقطي القوم هم القوم كأنهم قريش يعني وابا يجوا قريش أو كسي وحول عذاب جرت قريش وضدك مسلم كعذاب جيران أيها هذا مسلمين تلو عذاب أيها مركا يعني الإسلام معراج كاس وحول إيمان دونا مركا حلي لبعتاس لقى صوب بحي لكن وحاد عضي سنة جديه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لبطير ووين ونلش يسوي وين وقف دي لبقف أي مهم وها نلشيس أيها كدنتين وحاد انتي أذيركي أبو طالب يحاسكيسي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد سنة قديه لبضوض بدنتين لبضوض وحي كلا قابل سنايين أرميها الدبدة يرميها قده أرميها الدبدة وحي كسابسن أو قبيلك قريش اللي يكواس إنك السوء لبايين النبي لكن هدنا مدح أبو طالب وأضي قريشيات واحد بدنا أي حيرين جرين أي اسكدين جرين مرمان أنت يوسف دعونا وحيدي جرين ويل كان على ذلك أوتاي أو أصنانتي أن عابدي جرني وحكش شيء جاية ويل كان أما نجقبه أما أنا إسكقبنا هنا وفد أنت يوسف دران مركز أنتوا نبي ويا روح وكير أذيروا قوم كاجي أي معدن وحين إليهم
ama wiilkaas annaga iska qabanayno dilayna ama waxa uu wada hanaga joojiyo waxaan aad wado aniga iyo adiga labadeenu difaac ma geli karno oo qoomkan dhan iskama celin karnee fabqi calaya wa calaa nafsik naftaada iyo naftayda baaqi yeel oo wax aan qaadi ka walaa tuxamilnii min al-amri ma laa udiiq wax aan qaadi karin korkayga saaran qoom dhan lama dagaali kare waa keligay diintan aad sheegaysa iska dhaafayda dhan si aan u nabad galno markaas wuxuu adeer masaasay kula tahay wallahi law wad'u ash-shamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha al-amra ma taraktuhu qorraxda day soo gooyeen ma soo gooyin karaan oo ay midigta iga saaraan dayax haday soo gooyaan ma soo gooyin karaan oo bidixda iga saaraan diintan inaan iska daayana ay saa u yeelayaan wallahi inaan iska daynaynin adigu ama iska raac ama aniga markuu arkay nabigu ugu dhagan yahay diintiisa yaa wuxuu ku yiri adeer hawshaada wado cid aan ku dhiibi oo wax ka qaadi karta ma jirtee hawshaada wado alxamdulillah uu ilaalin jiray markii odaygiisa uu ilaalin jiray dhintay arimaha gudahana waxa uu joogay Khadija bint Khuwaylid oo nabiga sallallahu alayhi wasallam xaaskiisa ahayd oo aad u garab istaagtay waxyiga markii lagu soo dajiyay ugu horeysay nabigu wuxuuna aqoonin baa lagu soo dajiyay ilaa hadda ka hor muuna aqoonin waxay ku soo daga malagii ku soo dajiyay oo u keenay aayad ugu horeysay iqra markuu yiri waxoogaa uu akhrin waaye waxoogaa uu yiri ceejiyay markaasuu uu akhriyay quraanki markii uu ka tagay markii intuu soo laabtay ayaa wuxuu imaaday gurigiisa markaas wuxuu ku yiri zamiluni iduuduba aswaab laqad khashiitu ala nafsi waxay ku tiri Khadija radiyallahu anha kalla wallahi ma yukhzika Allah abada ilaahay ma ku hoojinaaye tilmaamaha aad ku tilmaaman tahay qof ku tilmaaman ilaahay ma hoojinaayo dib ma gaarsiinaayo innaka la tasilu rahim qaraabada xiriirisa saasalaad qofkii qaraabada xiriira ilaahay u kaalmeynaayo martida ayaad soortaa ilaahay u kaalmeeyo qofkii martida soora xaqaad garab istaagtaa sidaas qof dhibaato ma gaarayse khayr baad heshay isdaji markii way dajin jirtay markii la yiri yaa ayuha almudaththir qum fa anzir oo diinta loo dir inuu faafiyo oo la soo beeniyana suuqu soo wareegaya markaas hal qof oo soo rumeeyo weyna way soo caynayaan way soo dhagax tuurayaan way iska soo noqonaa gurigu imaana markaas qalbiga u qaboojinay iska sabir waa laga baxaa arintan marka waxay u ahayd yaani dajiye ayadan ilaahay wuxuu ugu abaalmariyay in nabiga sallallahu alayhi wasallam lagu yiri malaku jibriil wuxuu ku yiri Khadija waxaad gaarsiisaa rabbigeed ayaa soo salaamayay ilaahay ku soo salaamay intee laagta heblay ama hebelow ilaahay baa ku soo salaamayay waa meel weyn waxa loogu bishaareeyay bibaytin guri waxa loogu bishaareeyay jannada oo buuq iyo qaylo aan lahayn sababta loogu bishaareeyay waxay tahay buuqi iyo qayladii nabiga ay ka tirtiri jirtay ay ka qaboojin jirtay ayaa janno loogu bedelay xaaskiisa Khadijana ayadana way ka dhimatay sanadkaas maxaa soo raacay marka adeerkii oo dhintay oo arimaha dibadda ka ilaalin jiray iyo xaaskiisii oo markuu soo rafaado guriga markuu ku soo laabto qalbiga u qaboojin jirtay ayadana way dhimatay sanadkaas waxa loo bixiyay aamul huzni sanadkii murugada nabigu murugooday maxaa yeelay banaanka darbiga ku soo banaanaaday keligii iyo Quraysh isku soo bax markaas Quraysh waxay ku sameysay wax ayna horay ugu sameyn jirin markuu adeerkii Abu Talib uu noolaa markay rafaadiyeen yaa wuxuu isiri meeshan ma isaga tagtaa lacalla inaad meel kale oo magaalo kale ah oo dadku garab istaagay aad ka heshaa laga yaabaa meeshan way kugu adkaatay bal isaga tag wuxuu ka haystay mawlaahu Zayd ibn Haritha wuxuu ina keen bal aan meel kale raadsan meeshan wayna dhibtay maka way ka baxeen waxay tageen magaalada Taif markaas waxay la kulmeen saddex wiil oo walaalo ah oo magaalada markaas xukumayo madax u ahaa leena meesha ka bilaabaan doonta xaafad ka soo bilaabo dadka madaxda ay maqlaan xaafadaas waxa laga tashkiilinaya oo laga sheekeynaya intay markiiba ciidan u soo diraan la qabana si ina saas u dhicin ba madaxdii saddexda ay meesha ay joogeen ayuu ka bilaabay haday saddexda marka hawsha la qaataan magaaladuna way raacaysaa saddexdii marka maxay ku yiraahdeen tula fariis wuxuu ku yiri waxaan rabaa inaad fursad isiisaan magaaladan aan ku joogo oo aan fariinta Ilaahay ku faafiyo markaas ay jees uga baxeen mid wuxuu ku yiri adii markii lagu soo diray Ilaahay cid uu soo diray mu waay mid kale wuxuu ku yiri hadii adiga lagu soo diray Ilaahay saa uu tala galay Kacbada in
la jeexjeexo marada korka ka saaran kacbada thiyaab al-kacba marada korka ka saaran in la jeexjeexo asaa ilaahay ugu talagalay maxaa yeelay ma difaaci kartid markaas maxaa laga soo diray mid ka saddexaad wuxuu yiri kuwan wayba kula hadleene ma istaahishid aan kula hadlo bal nabiga dibka la marsiin fiiraadi markaas wuxuu ku yiri hadaa saas yeesheen waan iska tagayaaye bis idhaafale qurayshna yeena maqal inaan idin imaaday qof kalena ha u sheegina waan iska baxayaa maxay leedahay quraysh ogaato ama ay maqasho waxay leedahay hadda ciidan noo doonatay mi anaga magaalo kale noo aadib dhibaatada ay ku hayeen ku sii laban laabayaan wuxuu marka ii qariyo arintayda waan iska baxayaa shibiga dhah hadaa saan ila hadasheen ma ina sameeynin magaaladii intay galeen yaa dadkii waalaa iyo caruurtii ayay ku direen waxay dhaheen ninkaas ma u jeedaan magaalada dhagaxa looga saaro markaas laba saf ayay u noqdeen laba saf ay u kala safteen nabiga safkaas u dhaxmaraaya safkan markuu iska fiiriyo dhagaxa ay soo tuuraan oo ka gabaysileeyahay kuwan dhinacan jooga dhagax ku dhufanaay kuwan markuu soo fiiriyo kuwana ku dhufanaay kuwan markuu soo zaydna wuxuu isku dayaa dhagaxaanta nabiga ku hoobanaysa inuu asagu isu dhigo bal intuu ka yareyn kara nabiga waxa ku dhacay sidaas ay magaalada uga bixiyeen meel intuu iska fariisay geed hoosti iyo alla bari ducaa yu dirsaday ilaahay yu toogay wuxuu yiri allahumma ilayka ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwwin mallaktahu amri iyo dadku sida ay yaraysteen oo dhibaatada ay gaarsiiyeen ilaahay adiga ayaa dadka u naxariista gaar ahaan dadka la tabar daraystay ee awoodda loo sheegtay adiga ayaa rabbigooda anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi dadka awoodda loo sheegtay ilaahay adiga ayaa rabbigooda anigana rabbigayga laakiin wixii soo gaaray aniga igu dhacay waxba ka soo qaadi maaye ilaahu caafimaadkaaga ayaa waasacay ilaahu raali ahaanshahaada ayaan rabaa hadaa mar adoo ii caraysnayn waxaan u aabayeeli waxaan igu dhacay ma jiro markiiba waxa uu yimid malagii oo buuraha mas'uulka ka ahaa wuxuu ku yiri waa la soo diray amara la soo siiyay magaaladan saa ku gashay laba buurood ay hoosteeda ku taalaa hadaad rabtid labada buurood aan isku dhufanaya ayagana dhexday ku jiraan way ku baaba'een hal qofna kama fakanaay ee amarkaas isii aan baabi'iye markaas nabi wuxuu ku yiri maya arju an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah wa la yushriku bihi shay'a waxaan rajaynayaa dhabarkooda ilaahay inuu ka soo saari doono dad ilaahay caabuday yaan la laynin bal nabiga markaas malagi wuxuu ku yiri sadaqa man samaaka raufan rahima ilaahay ku bixi uu naxariis badan yahay run ayuu sheegay nabigu naxariis badnaa sallallahu alayhi wasallam bas uu iska soo noqday زيد wuxuu ku rasuulka ilaahay ma iska sii socono makaman ku noqonaynaa markaas waxa uu ku yiri waan tagayna makan ku noqonaynaa maka markay inay ku noqdaan oo ay galaan ma u suurta galayso wuxuu yiri waxaan sameeynaa odayaasha Quraysh mid kamid ah aan magangeliyo weydiisanaynaa inayna ilaaliyaan nin leeyahay al-Mut'im ayay arinta u dirsadeen wuxuu yiri inaad magangelisaan rabaa bas waa yuhuda asagii wiilashiisa soo baxeen nabiga banaanka uga hortageen ayagoo seeftoodii wata na keenay dheen anaga ma ka idin gelinayne ma ku sii ku soo galay kacbadu dawaafay markaas waxay ku yiraahdeen Quraysh ninkii ayagoo la hadlay ayaga ahaa amujirun anta am mutabi'un miyaad raacsan tahay mise waad magan gelisay oo kaliya wuxuu yiri waan magan geliyay ma raacsani laana duu waan raacsanahay oo muslimaanahay muslimiintii ciqaab ay loo qayb ka noqonaa asna oo lagu daraa laakiin nin ayaga ka tirsan oo dhaqan ay lahaayeen oo ah qofka hadii magangeliyo la siiyo qofkaasi ayaa lagu ixtiraamaya qofku magangeliyada si lama taabanayo waa dhaqan wanaagsan oo ay lahaayeen diinteenuna ay xoojisay oo qof hadii qof muslim uu magangeliyo magantaas waa la qaataa gabdhahan haday midalan qof magangeliyaan yaani waa magangeliyadooda qofkii ay magangeliyeen waa laga leexanaa waa gabadh il dhijir taas waxay noo tusisay Ummuhani Sayyid Ali la dhalatay nin gaalada kamid ahaa oo muslimiinta dhameeyay oo dhibaato badan geystay yaa intuu cararay buu Ummuhani wuxuu magantaadan ku jiraa markaas Sayyid Ali wuxuu damcay inuu magantaada ka soo baxsado oo yiraahdo ninkii saan noo galay ma had magantaada galay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo tagtay waxay ku tiri saasa jirta Sayyid Ali waa ka saas sameynaya anna ninkaan magantayda ayuu ku jiraa markaas nabiga wuxuu ku yiri ajarna man ajarti ya Ummuhani cidii adigu aad magangeliyo siisay annaguna waan siinay حديث النبي يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم
وهم يد على من سواهم يعني مسلمين احتراما marka waa dhaqan fiican carabtuna way ilaahin jireen adoo ninkii wuxuu yiri aniga ninkan waan magan geliyaa laga leexdo nabiga sallallahu alayhi wasallam muuna hilmaamin arintaas loo sameeyay ee wanaaga ah oo ninkaas uu sameeyay maalintaas uu nabigu aad u dhibaataysnaa markii dagaalkii badar uu dhacay oo maxaabiis laga qabtay gaalada yaa nabigu sallallahu alayhi wasallam ninkii odayga ahaa hadii uu noolaan lahaa waa ninkii magan geliyay haduu noolaan lahaa oo maanta uu igala hadli lahaa maxaabiistan Quraysheed uu dhihi lahaa maanta ana irgaa Qurayshan ka socda maxaabiistan inaad Quraysh u sii deysaan raba haduu idhii lahaa waan aqbal lahaa warkiis yani qof haduu wanaag ku galo waa loo gudaa wanaaga yani qof wanaaga inkira qof ma ah marka diinteena waa diin sharafeed qofka ihsaanka dadku u sameeyo ihsaana lagu jaaziyaa adi markuu maka ku soo laabtay maangeliyaasna uu ku soo laabtay dhibaatadii Taayif ku soo dhacdayna ay taalo halkaas waa marka al-Israa wal Mi'raaj meeshu ka imaanayo oo ah nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu helay fariin xaq Ilaahay uga timid oo ah hadii dadka dhulka joogay isaa ku galeen oo ku soo dhaweyn waayeen meel laga soo dhaweynaya lagu tusaayaa soo bax wala kixay halkaas aayada quraanka waxay imaanay subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'u al-basir subhanahu wa ta'ala waxay tahay dadku wax yaani ay sida caadiga ee muuqata ay u fahmi karaan ma ah qofku ilaahay iimaan siiyay ma ogeey qudra ilaahiya meeshan taala marka subhanalladhi asra bi'abdi allah adoonkiisi dheelmiyay ayaa nazahan wuxuu ka dheelmiyay min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa masjid al-aqsa la geeyay waxa loo kulmiyay rusushii ilaahay ee ka horeysay imaam ayuu u noqday taas waxay daliil u tahay duruus iyo cibarti way moogtahay nabi sallallahu alayhi wasallam nabiyaashii ka horeeyay inuu imaam u noqdo waxay macnaheedu tahay hadda soo ma taqaanaa wax la yiraahdo maamulada markii laga hadlaayo xil wareejin qof horay u joogay oo qof cusub meeshii loo magacaabay oo xilkii uu hayay iyo alaabtii uu hayay midkan cusub hadda loo magacaabay ku wareejinaya macna diimo hore soo jiray rasuul ilaahay uu soo diray ayaa jiray oo aan wada rumaysanahay rusushaas iyo kutubtoodiiba laakiin hawsha hadda rasuulka lagu og yahay nabigeena sallallahu alayhi wasallam ayaa lagu og yahay saas anagu wuxuu yiraahdaa nabi Ciise iyo nabi Muuse ay joogi lahayn hadda inay anaga raacaan ma ogay wada kale u furaan lahayd ma jirto waxa ilaahay hawsha aakhiru zamanka ugu dambeeyay rasuulka ugu dambeeyay waa asaga ma kana muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasuulullaahi wa khataman nabiyyin nabiyaas saluu khatimay risaaladiisu marka waa risaaladii oo lagu khatimay risaalooyinka nabi sallallahu alayhi wasallam inna mathali wa mathal al-anbiya'i qabli aniga saan isu mathalkayga iyo rasuushii ugu horeeyay mathalkoodu wuxuu la mid yahay midna sidii qof bana baytan sidii qof dhisay guri oo guri qurux badnaysay si fiican u dhisay illa mawdic al-labina hal bulkeeti meel bas ayaa ka banaan inta kale gurigu dhisan yahay halkaas bulkeeti meesha ka banaan fa ana tilka al-labina ana waxaan noqday halkii bulkeeti dhimana ana la igu xiray gurigiisaas islaamki oo dhameystirmay marka diimaha oo dhan marka saasay diinteena igu soo urureen إن الدين عند الله الإسلام إمامه النقضي كبعدنا النبي وحاول باللعبنا لما قضيات واي قضينا على الإسراء قضينا على المعراج الإسراء وحواي ومن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى معراج كنا وحوي هي من المسجد الأقصى أي الله قاضي إلى السماوات العلى سماء كنا الله دري مركز سماء كنا مركز الله دري سماء كاستمركوا جراعه وجبريل الله سعده وحاله فاستفتح جبريل هلا يغفر لها markaas waxa la man waa kuma markaas waxa jibriil markaas waxa la waman maaka ya kula jira markaas waxa muhammadun markaas waxa la waqad ursila ma la soo diray oo inuu halkaan imaado ma la soo bixiyay markaas samaawaadki ambiyada ilaahay oo samaawaadka loogu diyaariyay ya ka hor imaanay ambiyada isugu jira kuwa walaalo ay yihiin iyo kuwa asaga waalid u ah midka ay walaalo yihiin oo siman yihiin wuxuu ku dhahaa marhaban bil akhi salih wal nabiy salih midkii kale asaga waalid u ahna wuxuu leeyahay marhaban bil ibn salih wal nabiy salih waxa marka waalid asaga waa nabi ibrahim iyo nabi adam waalidkiis inta uu sii arkay markii ambiyadii uu dhaafay samaawaadka sare toddobada sano markuu ka gudbay ya malaku jibriil oo la socday wuxuu yiraahdaa halkan aan ku haraaya inta dhiman adigu sii soco markaas wuxuu ku yiraahdaa meeshan miya meel oo saaxiibkiis uu kaga haro
miya meeshaan lagu kala tegay laan jibriil aa waday markii hore oo dhan meel una aqoonin hada u sii soco meeshaan saayiga ga hare wuxuu ku yiri wama minna illa lahu maqamun ma'lum haddaan malaa'ignahay qof walba meel uusan dhaafi karin ayaa jirta marka fiiri malaa'igtu meel ayna dhaafi karin nabigii dhaafay waxay ku tusaysaa ilaahay agtiisa karaamada iyo sharafta uu ku leeyahay nabigeena sallallahu alayhi wasallam uu dhaafay markuu dhaafay samaawaadka kore ayuu tagay israan waxa ka hadashay subhanallahi asra bi'abdihi laylan mi'raajka oo laga bilaabo masjidul aqsa ila samaawaadka la geeyina aayada kale ka hadlayso waa suurada والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاق البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى يعني waxa la yaab loo soo arkaalay marka min al-israa ila al-mi'raajna waa kaas waadi marka yani lidin weydiiyo maxaa cadeynaya in halkan la leeyahay ilmiyay halkan laga sii qaaday labadaas aayadood ayaa quraanka ka hadlaya oo subhanallahi asraa oo ah min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa iyo mi'raajka oo suuratul wan-najm idha hawa oo leeyahay laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra waxyaabo la yaab leh ayuu soo arkay nabiga sallallahu alayhi wasallam kadib uu soo gadoomay samada lixaad markuu soo maray nabi Muuse joogay wuxuu ku yiri maxaa aad ilaahay kala soo kulantay wuxuu yiri konton salaadood ayaa la ii soo dhiibay oo ummadda lagu soo waajibiyay wuxuu ku yiri in badan ayaa reer banu Israa'iil anigu la noolaa ummaddaadu ma qaadi karto konton salaadood intaad rabbiga ku noqoto fasalu takhfiif ilaahay inuu ka fuudeeyo weydii wuu noqday saaqsoontiin shana laga soo dhimay 45 looga dhigay haddana nabi Muuse u imaaday waxa uu yiri 45 way badan tahay noqo wuu noqday adu sidii loo kalba u sii noqonay waxa laga dhigay 5 salaadood 5 salaadood marka ficil ahaana waa 5 salaadood ajir ahaana kontonkii salaadood ee hore wuxuu ilaahay u diyaariyay oo qofkii konton salaadood tukan lahaa ajirkii la siin lahaa oo meel loo dhigay ayaa waxa lagu siinayaa 5 salaadood soo naxariis marka marka man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha baad midalan 5 waxaad ku dhufataa 5 ku dhuf waa konton 5 salaadood waxa u dhigmaan marka konton salaadood marka konton salaad maxaad malay in loo diyaariyo qofkii konton salaad tukan lahaa ajir badan u heli lahaa ajirkii kontonka lagu heli lahaa yaa 5 salaad lagu helayaa marka taas waxa duruus aan ka faa'iideysan waxa kamid ah ahmiyada ay salaadu leedahay maxaa yeelay waajibaadkan kale ee islaamka dhulka lagu waajibiyay soonka oo kalmadaad inoo soo socda yaa ayyuhalladina aamanu kutiba alaykumus nabiga oo dhulka jooga leeyahay nabiga intii la qaaday samaawaadka la geeyay soona lagu soo dhiibay lama dheen waajibaadkaas oo dhan dhulka loogu sameeyay oo loogu sheegay laakiin salaada samaawaadka loo qaaday halkaas looga soo waajibiyay ahmiyada ay salaadu leedahay ayay ku tusinaysaa marka duruusta kale ka faa'iideysan waxa kamid ah dhowr xabaan ka soo qaadanaynaa dhibaato kasta oo jirta inaan la isdhiibin nabigu soo caamul xusni muuna gelin kadibna uu ka baxay marka inaga Soomaaliyeed nahay 30 sano iyo ka badan caamul xusni ku jirnaa dadkeenu islaynay dadka qaarkii intay niyad jabaan waxay dhahan Soomaaliya intay dawlad xoog leh oo fiican oo nidaamsan oo nabad caam ah dadku dhan is wada dhex maraan oo taas ma la gaari doonaa waa la gaari doonaa dadka qaarkii waxay ku leeyihiin ma dhici karto maxay hadda wixii waaqac joogay akhrinayaan inaga marka hadaan muuminiinahay waaqacaas markaas horta taagan kaliya wax lagu ma dhiso nabi sallallahu alayhi wasallam markuu hijroonay asoo god ka soo baxay Abu Bakar idhuma fil qaari إذ يقول لصاحبه لا تحزن الله معنا أيه waxa soo eriyay Suraaqa bin Malik oo raba 100 neef oo geel oo Quraysh ay tiri qofkii nabiga soo sheega ama dhimasho ku soo sheega ama nolol ku soo sheega 100 neef oo geel la siinaya asoo boolka raadinaya inuu qabtuu rabi markuu u soo dhawaadaba farastan sima la kufta ulku gala hadana nabigu sii socdo hadana farasti la kufta ninkii eriyay nabiga markii dambe nabigu wuxuu ku yiri waxaan ku sheegaa ka waran hadaan ku qoro warqad oo boqorada waqtiyaas jooga boqorkii ugu xooga badnaa oo Kisra la dhihi jiray ilaa Furs iyo Room laba dawlad baa jiri jirtay kii Kisra boqorkii Kisra taajka madaxa u saaran iyo dahabka meeshiisa yaala hadaan ku siiyo ka waran marka dad is weydiiso xaaladda nabiga marka uu ku sugan yahay iyo ballanqaadka uu sameeynayo inta isu jiraan aad ay u kala fog yihiin boqorka adduunka ugu xoog badan kursigiisaan ku siina maanta hadii lagu dhameeyo mesela Mareykanka iyo Ruushka awood sheeganayo hadii lagu warqadan ku qoraa madaxweynaha Mareykanka
aqalka cad waxa yaalo dhan lagu qoraa qortaa dhaw oo hadda xaaladan ay joogto waa la sheegaysan meeshaas ma sidaas oo kale yahay Kisra lagu qoraa ka warna Allah bas waa loo qoray Abu Bakar oo qoray nabiga qoraaka muuna aqoonin Abu Bakar oo qoray Kisra jijimihiisa iyo taajkiisa iyo hala siiyo Suraaqa bin Malik warqadii uu qaatay uu iska noqday xilligii dambe ee Amiir al-Mu'miniin Umar ibn Khattab alla qabsaday ama la furtay meeshii uu Kisra joogay markaas taajkiisii iyo dahabkiisii alla soo qabtay waa la haayab markaas waxa la aaway Suraaqa bin Malik inuu hore loo sheegay inuu warqad haysto warqadaadi la soo bax warqadiisu la soo bax waa lagu wareejiyay diinteen waa diinu amal waa rajo waliga hays dhiibin adin aamul xusnaan ku jirnaa aamul xusnaan ka baxaynaa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran culayska safadeeda ka dambeeyay mid kale waxaan kala duruus ka faa'iideysanaynaa masjidul haram quraanka lagu sheegay masjidul aqsana quraanka lagu sheegay hadda ka warrama hadii aad maqashaan masjidul haram oo kacbadii ah waa la qabsaday kuwa aan muslim ahayn inta ku soo duuleen ayay la wareegeen masjidul haramka xajka iyo meelihii la aadi lahaa iyo way idin dhamaatay muslimiintu maxay sameeyeen masjidul haram hadii la qabsado waxay dhaheen ruux iyo naga harin ruux bin aadam oo muslim ah aan ka xoreyna gaalada qabsatay masjidul haram saas al dhila hadaa saa dhihi lahaydeen haddaba masjidul aqsa aaway waa la haystaa ahmiyada uu masjidul haram leeyahay ayuu masjidul aqsana leeyahay maxay la quraanka isku xiray subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa idan masjid al-aqsa xoreyntiisu muslimiinta oo dhan laga rabaa qofka soo quraanka akhrinaya laga rabaa si aan loo xoreynin kuwa waxay rabaan inay ka dhigaan dhulka carabta laga haysto si ay u koobaan ay dhahaan masjid wuxuu ka maqan yahay carabta wadii leedahay carabta bas laga rabaa dadkan carabta ahayn muslimiinta ah oo caalamka maanta Indonesia iyo Malaysia iyo Pakistan iyo maxay dhaayeen anaga maxaa naga galay carab meel laga qabsaday marka qadiyadu qadiyo carab ma ah waa qadiyatul quraan al-masjid al-haram masjid al-aqsa maxaa ihtimaam siinaysa masjid al-aqsa quraankeena noo sheegay quraankeena wuxuu noo sheegayna nafteena iyo quraanku wuxuu sheegay yaani quraanku wuxuu sheegay oo masaajidadaas ayaa ka muhiimsan waadan la cabsanayo hadii la cabsanayo nafta kula weyntaayna waxa la yaqaan maxay iga galay masjid al-aqsa iyo afaarihiisi iyo maxay ha akhrinay marka soo gaaro suuratu nahl marka aad dhamayso بسم الله الرحمن الكهف اللي قبل وادي سورتنا ماشان ku jirtee ma suurada waan ka booda ma dhahay ma ka boodayst waa in akhriso way subhana alladhi asra adiq hadda asra akhrisidna masjid al-haram waa sheegay masjid al-aqsa waa sheegay taas waa mid kale dowrka yaani ummadan saaran ilaahay ummadan wuxuu ugu talagay muslimka ah caalamka inay idin hogaamiso وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله marka yaana ku dheeraynin ilaa waxay ahayd dhikra isxusuusin waa taqaaneen horaad u barateen laakiin hadana taariikhda in la isxusuusiyay waxbay kugu dhalinaysaa